agaasimaha maxadka isir maxamed cabdiraxmaan fugur agaasime maadaameynu ka hadlayno waa kuma xildhibaan waa maxay sifooyinka xildhibaanka laga rabo kasoo dhow بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan runtii marka hore salaamayaa dhammaan shacabka reer Boorama iyo gobolka Awdalba waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa oo runtii bogaadinayaa qabanqaabiyaasha Boorama Book Fair oo runtii sanadkii labaad wada intaa kadib waxaan jeclahay su'aashan layna weydiinayo inuu halkan ku gorfeynayno كل أنت أينو كده إنه دمانتين وموضوع إنه وده يلا مركا إن دمانتين سكوت ده إنه معها معركة guideline أما جواب عد أو هالك كسب بحث لك وين قرفنا مركا إن أنت رنتي سويدينه قدم كلا بعد وحوي أنت أينان سويدين اللي بانكها إن دون إنه صابحه إنه فهنور تقاب كدولة نمدينا أما النظام كإنه قاعدني أما إن تشابين إنه طبعا halkii aynu ka soo dhaqaaqnay nidaamkan ka soo dhaqaaqnay marka hadaan halka in yar ka taabto waxaan isleeyahay maadaama aynu qaab dimuqraadiya aynu doonayno inaan wax ku soo saarno dimuqraadiyadda badanka waxa loo kala saaraa laba hab loo kala saaraa mid waxa la yiraahdaa direct democracy midna waxa la yiraahdaa indirect democracy ama representative democracy oo ulajeedku yahay mid dadka ayaa policies-ka ama siyaasadaha lagu maamulayo iyagu go'aamiya iyaga doorta tusaale ahaan maanta hadii Boorama ay rabto inay badsato qorshaha lacagta ay gelinayso biyaha oo kale dadka u codeynaya marka waxa la yiraahdaa direct democracy way yaryiin wadamada sida runtii ugu shaqeeya laakiin se badanka caalamka oo dhan markay eegno dawladaha waaweyn dhamaantood waxay leeyihiin waxa la yiraahdaa representative democracy ama indirect democracy oo ah inay dadku cid doortaan dabeetana cidaasi ay dadka matasho oo dadkuna ka fishaan inay u qabato marka ay habka ay tahay tan in doonayno ama in tijaabinno halkeen ka nimid waxa laga yaabaa muddo 300 ama 400 sano ka badan weligeen dhaqankeenu wuxuu ahaa hab qabaliyo haddii u fiirsano tusaale ahaan halkan Boorama waxa lagu dhisay dawladnimadii koowaad ee Soomaaliland 1993 waxa loo bixiyay heshiiskii beelaha marka beeluhu waxay ku heshiiyeen inay dawlad dhisaan dawlad casriya dhisaan laakiin si cid kale hawshaas u taalo iyagu way ku heshiiyeen waana garanayeen hadda dib ugu noqono dadka ay soo saareen ama dadkii joogay halkan 5 bilood waxa kamid ahaa aqoonyahankii waxa kamid ahaa dhalinyartii waxa kamid ahaa haweenkii waxa kamid ahaa dhammaan mujtamaciintiisii oo dhan marka waxaan ka wadaa inaan yara taabto qabaa'ilku markay doonaynay in nabadeen iyo dawlad dhismo iyo nidaamkaas soo bilaabaynay way fahansanayeen marka dadkii soo diranayeenna dad hawshan garanayay markeen u soo wareegnay marka qaabkan aynu rabno imika inaynu qaadano oo tijaabo wali ku jira oo inaan wali maaragtay dhaqaajin oo geed socod ah waxaad moodaa in gabidhacleyn badan ku jirto runtiina challenges badan inaga hor yimaadeen waxa ka mid ah challengeska inaga hor yimid in kasta oo aynu rabno cid inay nabatasho haddana dadka inoo soo qabanaya challenge baa ka jira xisbiyada oo kale soo haddaan xisbiyada taabano xisbiyadu xeerkii ugu dambeeyay ee doorashada la rabo in lagu maamulo hadda soo akhriseen xeer 91/2020 xeerkaasi wuxuu dhigayaa in xisbiyada gudahooda laga soo tartamo wuxuu dhigayaa in xisbiyadu sameeyaan wax la yiraahdo gudiyo gudahooga marka hadda taqaanaan doorashooyinkan kale waxay sameeyaan wax la yiraahdo primaries ama caucuses oo micnaheedu tahay dadka bartaa jooga ama degmada jooga ama gobolka jooga ayaa ku tartamaya micnaheedu waxa weeye marka adiga iyo anigu waan isku dayi karnaa laakiin imika problemkaasi uu taagan yahay oo waxa jira in xisbiyadii halka inta iska fadhiisteen odayaashii iyo beelihii iyo dadkii kale ay u direen ku idinku soo xula marka halka problem baa ka jira cidaasi ma soo xuli karayso marka adiga kuma soo xuli karayso waxa u tagay cid kale marka runtii inaan taa horta marka hore fahansanaana ayaan doonayaa walina aynu ku jirno tajriba iyo tijaabin haddaba su'aashu waxa weeye yeen doonaynaa dadku yuu doonayaa weeye marka dadku wuxuu doonayaa dabcan qof matali kara xildhibaanka shaqada uu qabto baarlamaanku muxuu qabtaa waxaasoo dhan waxaan u deenayaa runtii garyaqaanka iyo dabcan ragga kaleba laakiin waxaan doonayaa inaan taabto sifooyinka aynu ka rabno marka haddeen mid u dul istaagno waxa ugu muhiimsan kolley shuruudo badan baa jira laakiinse waxa weeye horta qofkan ma fahansan yahay shaqada u taalo ma fahansan yahay oo keliya maaha sidoo kale qofkani diyaar ma u yahay ma isu soo diyaariyay tusaale ahaan imika inuu qofku wakiil shacab noqdo oo degmo matalo oo xil walba u soo istaago oo danahooga ka hadlo waa arrin culus
arrin maaha si sahlan lagu qaadan karayo marka qofku diyaar ma u yahay ma isu soo diyaariyey inuu xilli walba la heli karayo tusaale waxaan ku siin karaa dadka shacabka markaan dhegaysanayay nin ka mid ah wuxuu igu yidhi waxaa iigu darneed buuri ninkii aan maalin oo dhan cadceedda u taagnaa wuxuu garan waayey buuri telefoonkaygii inuu iga qabto micnaheedu waxa weeye diyaar maaha shaqadan umuu soo diyaar garoobin marka taana waxa weeye qofku inuu soo diyaar garo waxaa kale oo muhiima dabcan miyuu qofkani aragti siyaasadeed leeyahay xisbiga uu ka tartamayo miyuu aragti la wadaagaa committed ma ku yahay ma ka go'an tahay xisbiga aragtidiisa hadday maya tahay halkaana runtii dhibaato ama gaab baa ka imanaya waxaa kaloo muhiima qofkani danta degmada iyo ta qaranka ma isku xidhi karaya oo national interestka ma ka shaqayn karaya waxaa ka hor iman doona beritoole arrimo culculus ay ka mid tahay heshiisyo dowladdu soo gashay oo ka mid tahay maaliyaddii oo ka mid tahay ammaankii qaranka oo wax badan ka mid yahay qofkaasi markaa national interest ma ka shaqayn karaya haddii aan soo gaabiyo qofkani ma yahay qof nadiif ah oo track recordkiisii ama sooyaalkiisii hore bulshada ka dhex muuqday ma yahay qof bulshada u kacay ma yahay qof tusaale ahaan baahiyaha bulshada ka jira u kacay oo wax ma ka go'antay mise waxa weeye qof raba inuu u soo shaqo tago meesha hadday tahay inuu u soo shaqo tago ma mateli karayo shacabka waxaan doonayaa inaan mid dul istaago dhalinyarada inay ogaadaan qofka tusaale ahaan xildhibaan kuu noqonaya ama ku matelaya bulshada halkee buu kaga jira qofkan maxay tahay dhaqaale ururinta imka tusaale ahaan waddada bowrama markii la dhisayay dadkii loo diray yee ahaayeen aqoon-yahankii bay ahaayeen culimadiinkii bay ahaayeen haweenkii bay ahaayeen dadkii bulshada midooda bay ahaayeen marka markasta ood qof xulanaysid inaad isweydiisid qofkani halkaa ma ka dhex muuqdaa mise kama dhex muuqdo markaa waa dheeriyaan u malaynayaa laakiin intaasaan ku joojinaya agaasimaha isir waxau ka hadlay dowrsanaanta xildhibaanku inay ka mid tahay sifooyinka kuwo kale oo aynu sheegin hadhow idinka ayaa idinku soo celin doonaa waxaan ku dambayn doonaa gareeqaanka laakiin deegaanka iyo wakiilada deegaankaynu ka horrayn sababtoo maxamuud warsame ruush wuxuu leeyahay waa dacar qabiilkuyo yaa diiday odhan kara markaa waa musharax golaha deegaanka ah waxaan weydiinayaa waa kuma xildhibaanka ku habboon golaha deegaanka haddaad adigu ku habboon tahay sideed ugu habboon tahay بسم الله الرحمن الرحيم دمان dadka ka soo qayb galay barnaamijkan Boorma Book Fair 2020 iyo gaar ahaan barnaamijka hadda halkan dooda halkan aan ku hayno waa kuma xildhibaanku ama xildhibaanka aan doonayna waa kuma iyo dhamaanba teamkaygana waan wada salaamaya salaanta islaamka ku salaamaya assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaanka bacdi horta 7 sano ayaan waxaynu ka hadlaynaa golo deegaan oo aan shaqadoodii gudanayn qaylada iskaadhay culimaa ka hadashay siyaasiyiin baa ka hadlay ganacsataa ka hadashay aqoon-yahan baa ka hadlay cid walbaa ka hadashay markaa 7 sano yani iminka waxaan yani qaybtii ugu dambaysaan maraynaa oo xilliyadii mataqaanaaye dee suurta laafuufay oo kalean ku jirnaa bulshada waxaa laga sugayaa markaa waar haddaad 7 sano cabanayseen maanta maxaa diyaar u tahay ninka la yidhaahdo Albert Einstein ayaa wuxuu yidhi iminkoo kale masalan haddaad isku darto shaah iyo biyo iyo caana haddaad isku darto dee shaah baa soo baxaya haddaad intaad horada tiraahdo wax baan bedelayaa haddana intii aad ku celisood bun sugto dee bun soo bixi maayo shaah baa soo baxaya markaa nidaamkeennan aan wax u dooranay wax ka qaldan yihiin markaa anigu aanon dheerayn waxaan nidaamka markaa xildhibaanka la dooranayo jaranjo wuxuu waraa meelo dhinacyo kala duwan buu xildhibaan ka soo baxaa oo uu soo maraa waxa ugu horeeya waa dhaqanka waxa weeye caaqilada markaa beeshaasi ayaa iyagu isku tega dibeeta markaa kriteeriyooyin iyagoo yaqaano 60kii shaqayn jiray ayay wataan markaa inankeenna markaa waxaa la odhanayaa masalan inankan waa bilaa camal haye xirfad kale ku shaqaystana ma yaqaano waa laba reerkana dee waxbuu dee yuanaf mishaaro reerkana dee meesha uu joogo reerka dee wuxuuga la qaadan maayo ma garanayo waxa reerka golaha deegaanka ka yaalla marka kriteeriyahaasi wuxuu keenayaa masalan nin baa waxaa la odhanayaa nin hagaagsan baa baktiya nasiib ishaaradu iska qabanaysaa
ninkii baa damac yar yeelanaya markuu yiraahdo war odaydii ku yar noqday dana cid kale malayo ugu tagayaa oo xisbiga dee shuruud uga dhigay inuu dee odayada wato ninkii waxa la oranayaa waa nin wanaagsan oo dee hawshana ka bixi kara waxa la adiga walaalkaa baa xil haya marka hadduu walaalkaa xil hayo adigu waxa weyn dee ama qoladiina jufadiina yar baa xilaysa marka adigu sheekada waad ka baxday ninkii wanaagsan horta halkaas uu kugu daayay oo caaqil baa cunay taasi waa taa jaranjarada labaad waxa weeyaan waa ninka xoolaha ka bixinaya ama qabiilka ha ahaado oo iyagu dee qaadhaanka ururiya ama ganacsatada ha ahaataba waa ninka wax ka bixinayay ninka wax ka bixinaya xoolan xalaal buu ku shaqaystay xoolihii xalaasha ku shaqaystay buu doonayaa qayb ka mida nin tuuga inuu istighfar adu nin buu doonayaa adigu yar wax soo kharibaya inuu yani lacagtii geliyo waxa ku xigta xisbigii waar xisbiyadow rag xisbiyada dad ku jiraan way joogaan waarnay xisbiyadan aan waxaan garan waayay waxay meesha ka qabanayaan waar adiga wada xisbi qaran baan ahay dadka xisbigaaga soo galaya ama golaha deegaan isku sharaxaya ama golaha baarlamaan isku sharaxaya aqligii 60kii dad ka sugto daa waxa lagu keenay ninka aan ku sheegayan soo yersifeeyay baa lagu keenaya marka meesha waxaad ka qabanaysaa xisbiga ma garanayo xisbigiina marka uu gudoomayaa waxa ka oranayaan cod baan u baahanahay waar codka xataa dee dad cod doonaysa dee meel xun laga raadiye meel wanaagsan ba codka waa laga heli karaa jaranjarada xisbiga odaga markuu soo dhamaysto waa niman markaa garanayn waxa golaha deegaanka ka horan yar baan ka taaban doonaa ha waan ayad qodobka way deeta markaayna dadkii wax dooranayna waxa la yiri in hebel baa la dooranaya markaa niyow xildhibaan ku haboon golaha deegaanka sideen u heli karnaa aniga waxay la tahay kullay sida waxa loo baahanayaa marka wuxuu caadiyo dhaqan noqdaan waxa loo baahanayaa sida maanta aan sameeyay oo kale habeen dhaweed aan meelkan aan ku shaaciyay anoo xildhibaannimo markaa doonayo golaha deegaanka inaan isku soo sharaxo indhahan iska soo qaadaya wallahi haddii markaa meelun bay ama de way ila gooyo waan dhici ama de waan soo bixo si kala garan maayo si kala ma garanayo waayo bulshadu waxa la yiraahdaa meel ku wada nool waa qorshe miyaad ka hadlaysaa qorshahaas aad wadataa indhahaas ku soo qaadaysaa qorshahaas miyaa lagu dooranay waxaan u jeedaa sheekada way kala dambeynaysaa indhaha soo qaadku waxa weyn aniga su'aasha koowaad la weydiiyaa barnaamijba ma ahaba waayo anigu imika waxaan ku jiraa xog urursigii barnaamijyada aan doonayay inaan aan isku soo taagay golaha deegaanka ayaan xog urursigay ku jiraa nin walbaaba waxaan weydiinaya meelaha uu dee aqoonta u leeyahay waxaasaan ku jiraa waxa meesha la isku hayaa barnaamijka ma aha aqoon iyo ammaaniyo arrintaana ma aha laakiin waxa la isku hayaa waa meel dad xidhaan meesha raggu xidha baan doonayaa inaan ku dhex dhaco wax ka dhexeela dee ya marka iyaduna way socotaa yes hadama wax kale aynu saynaa qabiil baan saynaa waliba soo qabiyaanada nad qabiyaanada marka waxaan u jeedaa waa inaan waaqici noqono waa sax laakiin de waaqici haddii uu ku reebayo adoo meeshii kartira oo aqoon iyo ammaan isku huba adiga laftagaaga waana dagaalka dee aad soo gasho oo soo caladeeto barnaamijyadii iyo wixiina waxa weeyaan anigu been ma sheegee waxna waan ka yar diyaarsaday barnaamijkii aan la imanaya meesha waxna way dhiman yihiin dee dagaalkii kalena markaa laba dagaal baan ku jirnaa dagaal waxa weeyaan inaan anigu isu soo qadumidna wayna dadka dhiiri gelina wanaagsan maxamuud warsame ruush doodiisu waxa weeyaan isqadimaad ku dhisan mustaqbal qaran waxaanu imanayaa garyaqaan guula dafac inagoo ka duulayna dastuurka xeerarka doorashooyinka rabitaanka shacabka dhismaha dawladnimada muhiimadda sharci dejinta guuleed isla xisaabtanka bulshada iyo xildhibaanka macna ahaan xildhibaankii dadka oo ku socdo sharci qaadanaya dhabbada qaanuunka isla markaana ilaalinaya xeerarka iyo saraynta sharciga maasantahay awal waxaan celinayaa xigma marka labaad ku faraxsanahay inaan joogno awdalo bariyahan hormood u ahayd fikirkii Soomaaliland la wada leeyahay cadaaladda iyo sinaanta tiina waxaan rajaynayaa si wadaan oo idaan ka daalin si Soomaaliland uu noqoto Soomaaliland rabno doorashooyinka mashquul taas waa qodob
qofka waxa la weydiiyey xildhibaanka dooran doontaa waa kuma ama waa tuma horta waxa koowaad waxa weeye inaad adigu isweydiisid oo qofkan aad diranaysaa muxuu ahaa marka way soo dhawaan karaysaa xildhibaanku waa inuu yahay qof mas'uul ah qof mas'uul ah oo mas'uuliyadda saaran tahay oo mas'uuliyadda u hooseyso qoyskiisa yaalku wax ka qabto wax ka qaban kara weynay responsible ma yahay qofka xildhibaanka waa inuu mas'uul yahay waa inuu yahay qof wakiila oo ay ka dhaxayso xiriir wakiilnimo kii dirtay iyo isaga oo muddada uu joogaya cadiiman tahay sida hadda kuwa jooga maaha oo baahida dadkiisa yaqaana waxay doonayaan yaqaana damqashadooda yaqaana dhaqdhaqaaqooda yaqaana oo marka uu shaqaynayo joogo golaha wakiilada Hargeysa aan codkiisa ku hadla matalan codka baki haday baki soo diratay oo taa garanayo miyigii uga beertii oo magaaladii ugu weynay marka waa inuu qofkaad codaynaysa saddex waa inuu qof daacadey daacad waa inuu ka yahay waxaad ku ogaanaysaa wuxuu qabto daacad ma ka yahay hadduu maqaaxi haystay maqaaxidiisa daacadnimo ma ku maamuli jiray hadduu khaayin maqaaxidiisa ku aha golaha wakiiladana khaayin buu kugu noqonaya marka daacad ma yahay qofkaas afar karti ma leeyahay qof daacada baa jiro bilaa kartida competencekiisa iyo kartidiisu maxay tahay aqoontii baa markaas soo gelaysa wax qabashadiisii baa soo gelaysa hogaamintiisii baa soo gelaysa marka qof karti la meeyahay damqasho ma leeyahay dadkiisa ma la damqadaa oo markay abaartu haysato dhibaato haysato mashaakil haysto qof empathy lahoo la damqan kara meeyahay qof danta guud u adeega ma yahay mise waa qof selfish oo danta gaarka ka shaqeysta markuu halkiisa joogo haddaad diratid qof danta gaarka ka shaqeysta shaqada loo dirtay xildhibaan deegaan golo deegaan iyo golo wakiil iyo golo guurtiba wuxuu ku shaqeyn doontaa dantiisa shakhsiga ahayd buu ku shaqeyn doontaa waxaad arki doontaa xildhibaankii oo ganacsade noqday oo mashruucyada qaata oo dhulka ka shaqeeya oo arrimaha ku mashquulsan laakiin adiga waxaagii aan ka shaqeynayn waa in marka hore uu ahaa qof daniyasta shakhsi aha marka ma yahay qof danta guud ka shaqeeya ma ku taqaanaa xogogaal ma yahay qofkani baahidaada ma yaqaanaa mise marka horeba Hargeysa iska digayo intuu Hargeysa kugu yimaado kugu horeey waan ku codeeyay ma Yurub buu ka yimi qofkan horta war ma ku hayaa ma ku yaqaana baahidaada ma ogyahay taw dambaysan waxa qof aamina ma yahay oo codkaaga ku aamini kartid sifooyinka qof kale baa xildhibaana xildhibaanku ma aha qofka inta loo codeeyay golaha fadhiistay hadeeg qofka inta loo codeeyay golaha fadhiistay ee danaystaha noqday ee daacad looga noqday ee miisaaniyadda duuduubka ku ansixiya ee aan tabashada awdal ogeyn kaas xildhibaan ma talay haddaynu kolkaas siyaasiyiinta eedayno oo maagno oo dhaliilno oo inaanu golaha deegaanka habaarqabayaal baa jooga dulkii danta guud u iibiye oo inaanu golaha wakiilada waxbarashada iyo caafimaadka iyo danaha iyaga iyo saami qaybsigii iyo arrimihii sinaanta iyo wada lahaanshiga kama shaqeeyaan oo dabadeed biri markaynu codayno the same guy maybe wajigu waa ka duwan yahay laakiin kii oo kale u codayno horta innagan waxbay naga soconaynaan ogaan doorashada soo socota qofkaynu codaynayna ha noqdo qof sifooyinka leh haddaynu dad sifooyinka leh oo tiro la dooran oo waliba awdal doorato awdal waa la tuhmaya aqoonti baa lagu tuhmaya lixjaaladii baa lagu tuhmaya wax ogaalkii baa lagu tuhmaya ay soo doorato xilbaan wanaagsan bay noo baxaya kaan ka ahayn laakiin ilaahu PhD sito ama isku reer ahaado qofkaan qofka ahayn xilbaan ma ahay magac kale inuu bixinayna laakiin golaha uu fadhiyo doona kulay adiga عقبت الشتاء وحكمنا مواطنين تا ولا حساب تبين حلبانك يا صوت وتر ومحد طريق الشرعية كلها حساب تبين كلام حلبانك كو waxay kula xisaabtamay kan inaad qofniba ku codeyso qof tahay hadda waxaynu ku codeynaa community baynu ku codeynaa beel baa lagu codeeyaa qofku intuu isagu soo fadhiistaba ma oran iyaan u codeeyay wuxuu beel heblayay wadatay qofkaas xisaabtan aad adigu xisaabin kartaa ma jirto way adigu ma diran beel baa diratay beeshana odaybaa hor fadhiya odaygii isaga saaxiib noqon doona shaqaalu meel u geyn doona madaxtooyuhu soo tusi doona dabeedna shaqadiisii iyo xisaabtankiisii u dhameeyay laakiin haddaad adigu doorato shakhsi ku dooratay accountability way abuurmaysaa waa in la xisaabtanku waa laba wado ka socda waa qofka wax xisaabinayo iyo qofka la xisaabinayo marka biritoole markaynu codaynayno haddaa cali iyo caasho iyo cutiyo ku codaysaan aan waxaan qabaa in dad wanaagsan soo saareen la xisaabtami karo haddaynu si ku codayno egas iyo belway iyo belzad de belway iyo belzad un baa la xisaabtami doonta baahideenu halkiina si taagnaanaysa wax la wax isbedeli doonaana ana idin bal qaadaye aniga taayiga qora haddaa qabiil ku codaysaan mid isma bedelaya anigu ma weydiinayo kulliyad iyo professor kale laakiin waxaan weydiinayaa labada xildhibaan ee guriga ka galayna kursiga qabtaan والله أنا حتى دكتور يقول أمينو لكن ما أنت كنت تقولين بورا منا واحد وصل يعني متفتو ما حد ما قبل إنسان عاو قبل قادسة أنت
su-aasha labaad waxaa weydiinayaa maanta golaha deegaanka waad arkaysaa 7 sannadood bay fadhiyaan golaha deegaanka ee Somaliland marka laga reebo hal magaalo oo magaalada Berbera inta kale Somaliland way khasaartay oo halkii taagan wadata gabadhii dambana hadal aad u qiimo badan bay tiri soo waxay tiri qoladaa berigaasaana noogu dambaysay waxyaabaha kolley mar dambaynu inagu si gaara iskugu soo noqon doonaaye waxyaabaha anigu aan raba inaan kaga duwanaado shakhsiyan xildhibaanadii hore waa la tashiga dadka aan matalo haddii aad arki jirteen xildhibaan idinka dhuunta waan idinka dhuuman maayo idinku ha dhuumanina idinku ha dhuumanina waa kow sidaa aad iila xisaabtamaysaanna waxaan idinka rajaynayaa inaad iila xisaabtantaan sidaa maanta oo hordhaca oonan waxba hayn haddii ilaahay nagu guuleeyo aad iila xisaabtamaysaanna waxaan rajaynayaa inaad iila xisaabtantaan markaan joogo halna waxaan rabaa inaan dadka kale ee sidayda sharaxan aan idhaa waxa laga dhawaajay war haddii beel la ysku raaco qofku xisaabtan geli maayo war waa qof iyo damiirkii waa qof iyo horta damiirkii dhalinyarta dadka da'da yar iyo dadka waxbartay reeraha way ka go'an yihiin reeraha markooda horeba way ka go'an yihiin ciyaartaa markay dhex galaanna waxay noqdaan dadka ugu horeeya markaaba lagu tunta ee dhaska lagu daro war hadduu ninka xuli reerka yahay ninka wanaagsanina waa reerka lagaama xaq laha nin geed cidlo ka baxay ah ma tihid waan qabaa in shaksi loo xisaabtamo haa waa sax iyo nus waan qabaa in laga raadsado cod cidaydaan isku reerahaynna waa sax yadna reerkaagana waryaha dayicin codadka dadkeennu sida u codeeyaan loojigooda haddaad ka hor timaaddo dee victimna waad noqon kartaa intaanad wax fikirku isbeddelin haddaad tidhaahdo ficilka horta beddel waynu ku jabaynaa waxa ugu muhiimsan reerkana runta u sheeg constituency-ga awdaloo dhan baan rabaa inaan cod ka dhigto waanan tegi doonaa degmo kasta oo awdal ka mid ah waan tegi taa macnaheedu ma aha dee cidna waan ka soo jeedaayo waan dayiciyo waan iskaba iloobi gebigoodana ma aha the simple fact yani xaqiiqada ah inaad reer awdal tahay baad reer ku tahay bahashani bahal idinka hadhaysa ma aha yaan halkaana la idiin dhaafin oo been ha isku sheegina imikaba waxa si aad beddelayso ficilkaaga ha ka muuqato gobolkan anigu waxaan soo matelay anigoo urur dhalinyar dalladii soonyo iyagana dee rikoorhkayga waad waraysan kartaano ururadii aanu ku wada jirnay iyo akhyaartii aanu soo wada shaqaynayna way jiraan rikoorh qarsoonna ma aha markaa dhinac aan ka jawaabno madeela meeshu ma malcaamad baa horta hal shay baa laakiin idinka codsanayaa hal shay baan rabaa caawa inaan idinka codsado nin walba iyo gabadh walba oo halkan jooga cid baad rabtaan inaad doorataan reerkiina dhexdiisana cid baa ku loolamaysa waar u hiiliya kuwa wanaagsan wasalaamu calaykum bismi illaahi raxmaan raxiim horta gabadhu halkaasay weli taagantee horta aan waxaan ballan qaadayaa laba arrimood waad igaga tala gelaysaan ilaahayna wuu igu ogyahay waa shilinka cashuurta ee laga qaado dadka ee hooyada cadceedda fadhida laga qaado ilaa ka ganacsadaha laga qaada ilaa kuwa dadka guryaha laga qaado ilaa kuwa baabuurta le laga qaado shilinkaa inaan kuu dhaqaaleeyo oo uu gacmo aamina galo horta taa waan ballan qaadayaa waa ballanqaadka koobaad weeye
gacmaha minaynu galay waa markaa weliba maayarka noqda maa markaan xildhibaanka hayma kaasi waa qodob waxaa kaloon halkan ku idiin ballan qaadayaa maayarada maayar quraanu kama hadlayo maayarada aragooga ragga qaarkii waa wallaahi dawa hadday kuu qabataan heli maysid waxaan ballan qaadayaa in qof walba oo muwaadina oo reer boorami uu xilligu doonay arki karo xilliyada shaqada marka ugu horeysa waxaan runtii rabaa inaan su-aashayda weydiiyo agaasimaha ISA oo su-aashayda ay ku socoto waxaa runtii aan qabaa in rajabeel badan uu dhacay marka la eego bad experienceskiina soo maray iyo dad fara badan oo hore aynu aaminay oo markii ay meesha tageen isbedelay dabeetana dhalinyaradeeni maanta waxay taagan yihiin qof walba inuu yidhaahdo anigu maanta ma codaynayo dib loo soo saari maayo kuwii aan hore ugu khasaaray laakiin waxaan qabaa inaan rajadiina wuxuu la gaadho marka su-aasheedu waxa weeye hadalkaagii waxaa ku jiray xildhibaanku waa in uu la noqdo ama la fikir noqdo ama la mashruuc noqdo xisbigiisa su-aasha meesha taalla waxa weeyaan hortay saddexdan xisbi ee saddexda mare ee kala duwan sitaa ee wax mabdao inankii aan su-aasha weydiinaya ma arkayo kaasaa rabaa inaan hadalka saddexdan xisbi ee ina hor joogaan ee wax allaale iyo waxay ku kala duwan yihiin marka magacyada laga tago aanay jirin horta marka hore iyagu mabaadi ma leeyihiin qofkii xildhibaanka ahaa ku raaci karo su-aasha labaad waxa weeyaan mid kali waa sida su-aashu bay la socotaa madeena raallaaw waxaa jira dad wanaagsan oo doonaya in ay xisbiya iska soo sharaxaan laba ka mid ah halkaa fadhiya maydhane iyo waxa weeyaan maxamed cabdikariin axmed boogaar halka ku arkaya isla fadhiya dad fara badan oo wanaagsan baa raba inay tagaan dadkaasi ma la mabda noqon karaan kuwa aynu naqaano ee imka uu garyaqaan ka sheekeynayay ee markooda hore iyagu bilaa mabda baa taawatay labada qodob waxa weeye kow dhalinyartu inay disfranchised yihiin oo niyad jabsan yihiin sababtuna tahay xisbiyada meesha jooga oo saddexduba aanay waxba ku kala duwaneyn marka laga yimaado midabada calamadooda soo saama su-aashuna waxa weeye muxuu aragti ula wadaagi karaa xisbiga noocaasa marka waxaa daba dhigtay markii dambe tiim dhalinyaro ah oo dadaalaya oo isku dayaya iyaguna inay ka qayb qaataan doorashooyinka marka mid waa inaynu ogaanaa kow horta dastuurkeenna inooma ogola murashax madax bannaan wayn jeclaan lahayn qodob kale waxaan markii horeba tilmaamay xataa xeerkan hadda doorashooyinkii 2020 la ansixiyey oo dhigaya tusaale ahaan xisbiyadu gudahooga in laga tartamo si daahfuran loo tartamo inay xisbiyadu macal hawshaa gabeen oo beelihii intay halkaa geeyeen ay sugayaan beeluhu cid ay soo xulaan beeluhuna aynu garanayno inaanay adiga iyo cid kale soo xuleene labada ay door bidayaan cidda maaragtay si kale wax ku raadinaysa marka duruuftaasi way jirtaa laakiin mid kale ogow dhalinyara tahay 70% waxa la soddon bay ka yar yihiin waxaa laga yaabaa 80 ilaa 90% inay ka yar yihiin 40 dhammaantiin awood waxaad leediin ah inaad codaysaan intaa laftirkeedu wax lagu niyadjabo maaha sababta ugu yaraan after all idinkaa talada gacanta ku haya dadkaad gacanta ku haya people power baa jira waxbayn bedeli karaynaa marka taa marka la eego laba arrimood baa jira ma waxaynu samaynaa nidaamkan ka kufrinaa oo waxaynu ka soo horjeednaa nidaamkan oo dabeetana waxay dhahnaa wixii afka qaad ku oran jireen protest vote oo micnaheedu inaan la codayn mise systemkeen ka dhex shaqeyna laba arrimood baad kala dooraysaa ma revolution baad qaadan oonad garanayn wax ka dhalan doona mise reform baad qaadan waxay la tahay qodobka hadda baad tustay ah tusaale ahaan cabdikariin oo halkaa joogaan kusoo aan soo taabtay tusaale ahaan cabdikariin iyo tiimkiisa la midka ah laba arrimood bay ka jawaabeen waata koowaade dadku waxay doonayeen bay ka jawaabeen dad waxay doonayeen bareedha oo aqoon leh oo geesinimo la yimaado systemka ka kufriya cabdikariin wuu ka jawaabay waxaa loo baahan yahay haddaba tiimkaa faraha badan leh ha isu tagaan gobolkay doonaan ha ka soo jeedaan aragti baa midayn karaysa xisbiyada gudahooday ka dhex ololeen karaan odhan karaan aragtidaasaan wadanaa dabeetana the lesson of the two evil halka ugu sii dhibka yar ayay aragtidooda la tegi karayaan adduunkana way ka dhacdaa oo xisbiyo badan iyagoo kala duwan bay haddana waxaa jira garabyo badan oo isku dayaya qodobkan kusoo gunaanadaya waxa weeye dhibka haddaynu si fiican u abaarno qodobkan qabyaaladda markaad ka sheekaynaysaan qabyaaladda iyo aragti baa laisbarbardhigaya sababta aragtidu u maqantay qabyaaladda loo keenayaa waxa weeye qofka position of leadership jooga waa lazy aqoon ma laha waxaanu ogyahay waxa ka iibsamaya suuqa ka iibsamaya qabyaaladda
haddii sidaa aynu ku diidno oo cabdikariin iyo tiimka aad raacdaan waxaa laga yaabaa berri iyo saa dambaba in horumar la gaari karayo laakiin ha ka fadhiisanina awooddiinna aamina waxbaad bedeli karaysaan agaasimaha isru maasiya gariiqaan dafac 1 minute iyo badh awdal waad maqlaysaa ku soo gabagabee 1 daqiiqo iyo badh aragtidaada inantii hadalka fiican jeedisay laba arrimood waxa weeyaan dhibaatada Soomaaliland ka jirta iyo ceebta taala in adigoo ciyaal aad maanta fursad u heshin aad codeyso 15 sanadood waa marka koobaad inay ogaana waa ceeb siyaasadeed Soomaaliland ka jirta mid labaad baan sii sheegaya qof aanad aqoonin ha u codaynin qof ku yimo ku yiri waxbaan qabanaya badal macaaneynaya ha u codaynin hadduu maqaaxi haystay maqaaxidiisa muxuu ka qaban jiray hadduu si fiican u shaqayn jiray u codee maydhane hadduu shaqo fiican qaban jiray si society-ga taa ku xisaabi ruush hadduu jaamacadda iyo arrimuhu ka shaqeeyay si fiican u shaqayn jiray taa ku xisaabi qof aan record lahayn oo aanad aqoon u lahayn aftahamo iyo hadal ku codaynina anigu waan ku adkaysanayaa dhalinyarada awdal waxaan ku adkaynayaa inaydan qabiil ku codaynaa ku codaysaan shakhsi qof kartilo oo ummadda wax u tarana u codaysaan maydhane daqiiqad awdal waxaan leeyahay berigii hore allaha intii dhimatayna u naxariisto inta noolna allaha cimriga u siyaadiye odayo qiimo badan ayay Soomaaliland talo waayeel ku soo badbaadiyeen maanta Soomaaliland waxay tawan tahay waa cadaalad waxay tabaysaa kaalintii aqoon-yahanka awdal ee wuxuu tabayo faahfaahin lahaa ee Soomaaliland quruxda badan ee wada hiigsanayno bisi lahaa kaalintaana idinka iyo ayaynu wada buuxin karnaa waa kaalinta tahay inaanu midowno aragtideedu waxa weeye marka aynu soo saaranno dad waxgarad ah dhibteena qeexi kara macna u yeeli kara waa kaalintii aqoon-yahanka maanta la tabayay war aqoon-yahankiina soo hormarsha waad mahadsantihiin professor daqiiqad waxbaa dhaafin waayo daqiiqad ba la siiyeen warniyo kullu xisbiyada halkan kuma arkaya xeerka doorashooyinka qaranka xeerka doorashooyinka waxa ku jira shuruudaha golayaasha deegaanka ninka qofka xildhibaanka noqonaya isku sharaxaya shuruudahaasi runtii aad buu adeegay golaha deegaanka ku kale ilaa 10 shuruudood baa jira ilaa 10 shardi baa jira waxa kamid ahaayna wax shahaado waxa weeyaan degree iyo 5 sano oo shaqo waa 5 sano oo shaqo ninkii caaqilku soo xuliyay inta ma buuxin karayo labadaas ku dhacaya marka ayna waxaan markaa xisbiyadalkan uga faa'iideysanayaa waa inuu ilaahayna ka cabsado xabadaan ugu yar caawiyan oo istab yar dhigta baasha ayaan ilaa haddii kale waana la soo weydaaranaya marka waxaan idinkaga tegayaa guulaha dafaac waxaan ku raacsanahay waa nin aanad garanayn ha doorantee nin marfash laga soo hoos saaray ha doorantee ninaad garanayso ama wax kuu dhigay ama meelaad ka wada shaqaysan oo aad garanayso ammaanadiisa cadaaladiisa iyo waar waxaad doorteen habeen wanaagsan bandhiga buugaagta boorama kulanka waa kuma xildhibaan sida quruxda badan leh aad u dhageysateen waxaan idin leeyahay garyaqaan guuleed dafaac isir maydhane iyo ruush